magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Dilxow waxaan hees dareen la wadaagay degmada Axmed Jab markaastan hadda qaaday waxay tahay anigu qosayso dareenkayga marka qofkii dhalinyarada wax dareema uu dareemi kara qof walba dhibkiisa uu ka turjumi kara ma dhawaan dhacda waxay u dhacday 2009 bishii 25 bay ugu dhacday wallahi kulleeba waxay ii daliishadeen ayaga baa ogaayeen anigu inaan dhalinyarada baan iska ahaa ardaya oo markaas xaafadiisa jooga halka degmada Daynil labaan deganaa laakiin waxa ka bari jiray degmadan oo hawlwadaag waxaan rabaa inaan Cabdiqaadir Sacbar asaasiisan dhamaantiinba Instagram-kaygu igala soo xidhiidhay markaan arkay gacantiisii midig iyo gacantiisii iyo lugtiisii bidix oo markaan qiirooday iyo markii aan dareemay inaan xamar ay u baahan tahay nabad iyo nolol Sacbar asaasiya gudoomiyaasha iyo xildhibaaniinta oo dhammaan waana ninkii aan Instagram-ka markuu igala soo xidhiidhay oo sheekooyinka iyo qisooyinka wixii ku dhacay oo wixii diijasbaad ka magaaladan mar labaad Sacban Aksan walaalkiisa mid baan ogahay walaaltinimo sinjiyo dareen iyo Soomaalinimo xuduud ma laha waa ninkii baray Sacban Aksan Cabdiqaadir عاونا هستوني قضية
waxaan ku soo dhaweynayaa